Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaam dhammaan walaalahay Soomaali meel kastoo joogtaan. Waa mar kale iyo walaashin Xabso Shire kusoo dhawaada channelkayga hooyada maanta. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo caruurta hadalka soo daahdo. Ayaan dhaweyd waxaan weydiiyey hooyooyin ku xiran page-kayga hooyada maanta ee Facebook maxaa sababi karo ilmaha inuu hadalka soo daaho. Yacni waxyaabo badan ayaan waalidka ka hadleen sida cunuga in oo aan la sheekeysanin iyo in oo aad u fiirsado TV-ga ama telefoonka maadaama ayaamahan dambe ay soo bateen yacni waxyaabaha la fiirsanayo oo ilmaha la iskaga mashquulay ma fahanteen waaga horeeto yacni ilmo kale la ciyaari jireen dugsiga aadi jireen yacni si kale loo mashquulin jiray laakiin hadda ayaanta maxaa soo batay waxyaaba aad loo fiirsado sida kombiyuutarada ama telefoonada iyo TV-ga ma fahanteen markaa waalidka inta badan waxay isku raaceen in oo labadaas nooc u badan tahay waxyaabaha keeno inuu cunuga hadalka soo daaho. Marka maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr qodob oo sababi karo inuu ilmaha hadalka ka soo daaho. Horta marka ugu horeyso maxaa waaye calaamadaha lagu garto cunugan intuu hadalka soo daahay goormeena la dhihi karaa cunugan hadalka ka soo daahay. Cunuga horta marka ugu horeyso calaamada ugu horeyso la fahmi karo waxaa ilmaha markay yar yihiin 2 bil markay gaaraan waxay bilaabaan hadaaq. Haddii cunugaaga uusan hadaaq bilaabin uuna 2 bil jiro waxaa calaamada ugu horeeyo oo la dhihi karo yacni inuu cunuga wax si ka yihiin. Cunugaaga haddii 1 sano iyo bar uu gaaray maxaa la dhahaye uusan wax eray soo saareynin ilmaha inta badan markay sanad iyo bar gaaraan waxay dhihi karaan mama baba dada erayo hadaaq erayo oo fudud way dhihi karaan. Cunugaaga haddii 2 sano uu gaaray uusan isticmaali karin 25 eray ugu yaraan waxaan dhihi karnaa cunugaas hadalka ka soo daahay. Cunuga 2 sano iyo bar markuu gaaro uusan isku xiri karin 2 eray ama hal jumlad yar uusan sameyn karin. Cunugaaga haddii 3 sano uu jiro uusan isticmaaleynin 200 eray ugu yaraan uusan waxba ku weydiin karin yacni cunugaaga intuu ku imaado waxna ku weydiin karin oo fartale wax uu ku fiiqaayo. Haddii cunugaaga 3 jirka inuu waxa sheegtid oo dhan uu fahmayo laakiin asaga gacmaha uu ka hadlaayo oo hal erayna uu ku dhawaaqi karin taasna waxaa la dhihi karaa cunugii hadalka ka soo daahay. Marka hadalka soo daaha maxaa sababo waxaa sababo dhowr shay oo ay ka mid tahay waxyaabihii waalidka aan weydiiyey maalin oo ay ka dhawaajeen oo ah cunuga la sheekeysanin iyo in screen time badan la siiyo cunuga. Marka horta marka ugu horeyso cunuga waxaa keeni karo inuu hadalka soo daaho haddii dhibaato afka ay ka jirto. Waxaa jirto ilmo ku dhasho carabka oo hoos qaybta hoose iskaga dhagan tongue tie ayaa loo yaqaanaa. Taasna waxay kaloo dhibaato u keeni kartaa cunuga inuu naaska si fiican u nuugi karin. Markaa aragti cunugaaga naaska si fiican u nuugaynin carabka hoostiisa ka fiiri waa marka ugu horeyso xaaladda waxaa lagu ogaadaa naaska ma jaqi karaan ilmaha carabka hoos iskaga dhagan ilmo waxaa jiro faruurta iskaga dhagan ama problem ka jiro muscleska ama murqaha afka ku jiro haddii uu problem ka haysto cunugaas hadalkiisa inuu ku dhibtoodo ayaa laga yaabaa. Waxaa kaloo keeni kara cunuga hadduu dhagalaa yahay qof aan wax maqlin ma hadli karo soomahan qofka markuu wax maqlo ayuu erayna qabsan karaa ka bacdin ku jawaab celin karaa. Marka cunuga haddii dhagalaa yahay haddii cunugan maxaa la dhahaye uu qabo autism waxa la dhaho autism spectrum maxaa la dhahaye asigana hadalka inuu ka soo daaho waa macquul. Cunug haddii maskaxiyan uu yacni uu ka yahay oo maskaxiyan ka dhibaataysan yahay ama oo dhibaato uu ku dhashay uu qabo ilmo waxaa jira xataa marka qaar kafka aad ugu daaho oo yacni naqdaan maskaxiyan dhibaato ay soo gaarto ilmahaas maxaa laga yaabaa inuu hadalka uu ka soo daaho. Cunuga haddii aanan yacni wax communication lala sameynin lala sheekeysanin uu dad uusan arkin uu kaligiis yahay definitely waxa environment-ga aad joogtid ayaa wax lagu bartaa. Haddii cunugan uusan haysanin qof uu la sheekaysto waalidkiisa ayna la hadlin hadalka inuu ka soo daaho ayaa macquul ah. Marka cunugaaga see ku caawin kartaa inuu hadlo horta marka koowaad waalidka hooyada siiba maadaama cunuga qofka uu waqtiga ugu badan la qaato ayada ay tahay waxaa muhiim ah markay cunuga saas u dhashabo inay la sheekaysato maalinta cunuga dhabta lagu soo saaraba aad la sheekaysatid markaa naaska siinaysid u sheekaysid qolka dhexdiisa markaa wax ka qabanaysaa u sheekaysid wax walba qabanaysaa u sheegtid cunugan waa sax wuu yar yahay ma hadli karo laakiin hadalkaas aad la hadlaysid wuxuu siinayaa in lala joogo uu dareemayaa wuxuu dareemayaa yacni
qofka dhawaqiisa wuu maqlaaya soo maahan marka adi with time markaa cunuga la hadashid hadalkii wuu qabsanayaa cunugaaga markaa la hadlaysid uu soo weynaadane waxaa la rabaa si toosa inaa ula hadashid adoo mashquulsan hala hadlin yacni toos face to face inaa cunuga la hadashid cunugaaga inaa maxaa la dhahayay guriga alaabaha taalo inaa farta ugu tilmaamtid aad dhahdid kan waxa waay derbiga kan waxa waay sariirta kan waxa waay cunug jirkiisa aad tusisid gacantaada dhegtaada sankaaga intuu yaryahaba aad ku bilaawdid maxaa la dhahay waxaa kaloo jiro cunuga inaa wax u akhrisid buwaag aa u akhrisid anaga Soomaali haddaan nahay akhriskeena aad u liita wax uma akhrino mana waxaana keenayo waalidkina fursad uma hayaan oo yacni ilmihiyaa ka batay jaanis ay cunug wax ugu aqriyaan ma hayaan ama qaarkoodna way jecel yihiin wax u aqriyaan laakiin buwaag ma lahan marka waalidka wax bartay aan waxaan ku dhiirigelinayaa buwaag xataa haddaysan jirin oo Soomaali ilmaha loogu talagalay inay sheekooyin English ay soo dejiyaan application waxaa jiro sheekooyin English oo ilmaha loogu talagalay inaad soo degsatid cunugaaga u akhrisid Soomaali u akhrisid maadaama anaga Soomaali ana cunugaaga inuu luqadaada barto number 1 luqadaada koow mother tongue oo hooyada inuu cunuga koow yaqaana fiican oo luqad kaleeto aan lagu bilaabin marka cunuga aad la hadlaysid wax kala ha qabanin dulqaad yeelo markuu kula hadlayo si aayar u dhageyso haddii hadalka uu soo daahiyo macnaha oo gaja yahay hadhiin war naga tag ma ku fahmeynay ha iska burin cunuga la hadal dulqaad samee dhageyso maadaama aad jeceshahay cunugaaga hadhow si nadiif inuu kula hadlo waa adigana waa inaad time gelisaa hooyo haddaa tahay aabba haddaa tahay cunuga markuu su-aal uu ku weydiinayo su-aalihiisa uga jawaab ha burinin haddii aad dareento xataa cunugaaga waxay rabaan jaanis u sii yacni inuu asaga uu kuu sheego yacni u express gareeyo waxa uu dareemayo adi hadhihin cunuga saasuu rabaa qof hadduu su-aal weydiiye ha uga jawaabin cunugaaga 2 qof 3 qof aad tihiin cunugii iyo adiga iyo qof kale cunugaa wax sheegay wixii buu fahmi waayay qofkii adiga hadhihin cunuga saanuu rabaa hadhihin cunuga fursad u sii inuu asiga express gareeyo waxa uu rabo inuu in la fahmo yacni si marka cunugaa erayo waxaa jiro uu ilmaha yacni ku adag tahay inuu ku dhawaaqo oo ay gafayaan erayadaas marka aragti inuu gafaayo gafkiisa cunuga ha u sheegin waryaa erayga saas hadhihin waxaa tidhaahdaa maxaa la dhahay erayga saxda le ugu celceli bas just halkaas eray oo dhibaayo sida saxda adi ugu celceli laakiin ase qaladka uu sheegayo gadaal ha u celinin ha soo sheegin qaladka asiga uu celinayo cunug waxaa kaloo samayn kartaa ilmo kala dhexgeey si uu la sheekaysto walaalada iyo ilmahay dhaleen ilmaha deriska fursad u sii ilmo kaleeto inuu dhex galo ama kaleeto waxaa geysaa xanaanooyinka ciyaalka la geeyo maxaa la geey waa cunug markaas cunug hadal gaaro waayo oo hadal ka soo daahay ma fahanteen oo ilaa 3 jir inaad dad dhex geysid oo lala sheekaysto muhiim ah soo marka cunugaaga inaad su-aalo weydiisid mar walbo fursad uu kula sheekaysto aad siisid adi maalintii yaa la joogtaa aabihiina habeenkii inuu la sheekaysto mar walba su-aalihi cunuga uu ku weydiiyo maxaa la uga jawaab ilmaha hadalka kasoo daaho maxaa keeni karo horta cunuga sidee oo yacni maxaa keeni karo waxaa jiro keeni karo inuu hadal kasoo daaho cunugaaga hadduu wiil yahay inta badan wiilasha waxaa la lahaa hadalka way kasoo daahaan gabdhaha dhaqsi hadalka bartaan ma fahanteen cunugaaga haddii uu ku dhashay dhicis waxaa macquul inuu hadal kasoo daaho cunugaaga haddii uu ku dhashay miisaan aad u hooseeyo oo ka normalka ahayn ilmaha inta badan waxaa loogu talagalay 3 kiilo iyo ilaa wixii karoon inay ku dhashaan haddii uu aad cunuga miisaankiisa uu yar yahay waxaa laga yaabaa inuu hadhow hadal kasoo daaho haddii ay jirto familigaaga oo hiddo ay u leeyihiin inuu hadal kasoo daahayna waxaa dhici karto cunuga inuu hadal kasoo daaho marka cunugaaga inuu hadalka soo daahan ayaa ogaan karo horta adiga kow hooyada waa ogaan kartaa because ilmaha waqti gooni oo xadidan jirto ee hadalka ay bartaan inkastoo yacni xaalado rabbaani ay iska jiraan oo ilmahan cunug walba cunug kale ku mid maahan laakiin waqti average jiro oo loo sameeyay ilmaha oo inta badan raacaan loogu talagalay cunuga intaas haduu gaaro waa intaas inuu isticmaali karo halaas eray cunuga haduu waqtigaas gaaro waa inuu socdo ama gurguurto ama istaago yacni developmental milestones lahaa cunuga marka haddii uu milestoneskaas uu gaari waayo
waxaa jiro ciladna mar walba cilad maahan ilmo waxaa jiro iyaga naftirkooda slow iska soo daaho mar walba gurguurashada ka daaho socodka ka daaho macnaheedana ma aha mar walba cunug problema haysta laakiin waa inaad mar walba indhaha ku haysid cunugaaga hadalkiisa dhaqdhaqaaqiisa socodkiisa wax walba inaadiga maadaama cunugaadi aa dhashay aa ogaatid si hadhow aa dhakhtar ula tashan kartid inta cunuga uu yaryahay oo wax laga qaban karo marka waxaa muhiim ah hooyada mar walba inay alert tahay ee qalbigeeda uu furan yahay ee og tahay cunugeeda cilad haddii jirto ama wax problem si loo caawin karo hadhow marka waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysataan intaan ka badan yacni hadalku wuu sii dheeraanayaa marka intaas waa inta ugu muhiimsaneed oo idinla wadaagay cunug mar walba la sheekaysta insha allah fursad hala siiyo dhakhtarna hala geeyo haddii aa aragto cunugaaga inuu kasoo daa hadalka dhakhtar geey si xaaladda loo diagnose gareeyo oo loo ogaado baaritaan loo sameeyo cunugana loo caawiyo insha allah waa mahadsantihiin jazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu